wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa gobolada bari ee Soomaaliland oo abarabahsaniyay ka jireen ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil isagoona saakaarooriyadii hore ka soo kici timay gobolka Togdheer laguna soo dhaweeyay deegaamada hoos yimaada gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Sheekh markii uu soo gaaray magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waftigu degay Hotel Mansour ee magaalada Berbere waxaana ka warbixiyay ujeedka safarkan uu ku yimi gobolka Saaxil afayeenka xisbigaasi Xasan Gaafadhi isagoona sharaxay ahmiyadda uu leeyahay imaati kan gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi waxa aanu maray afar gobol saddex gobol baan maray gobolada waaweyn waa gobolka Togdheer gobolka Sool iyo gobolka Sanaag isugu uruuray saddex meelood ama saddex aag baa la isugu uruuray aag waa aagga Buuhoodle degmada Buuhoodle iyo degmada Burco iska galaan aagna waa aagga ka xiga kor ka xiga maxaan ku raadinaa degmada Lascaanood Balcad iyo maxaan ku raadinaa xidhxidh aagna waxa weeyaan waa buulaleyda Ceergaabo iyo Flasiraadley aagga weeyaan aagga afraadna waxa weeyaan aagga waqooyiga ka xiga garadiga Elfin iskalahooda waxay xuduudooda iska gasho ka xiga waqooyiga ka xiga oo la yiraahdo xanigiyo wareeg afarta goobood ayaa ugu badan dhulka ay dadku isugu tageen abaartaas dhibaato weyn bay geysatay xooluhu aad bay u baxayaan maxaan ku raahdaa meel kasta waxaad ku arkaysaa golfafihii oo buuxiyay dawladdu aad iyo aad bay uga dadaashay waxa gaaray raashimaad maxaan ku raahdaa u tiro badan ay gobolada gaaray waxa gaaray biyo sidaas oo ay tahay dadka waxba lama wada gaarsiin karo laakiin waxa aad iyo aad aan dawladda uga mahadnaqaynaa iyo guddida qaranka abaaraha iyo guddida abaaraha ee gobolada taakuleynta abaaraha sida fiican wixii gacantooda soo gaaray ay uga simeen gobolada ay maxaan ku raadinaa dhibaatada ay qabsatay safarka dheer waxaan maanta ku soo gabagabeynay annagoo xisbi ahaan kaga hadnay madaxweynaha gobolka Sanaag waxaan maanta ku soo gabagabeynay gobolka Saaxil halkaas oo aan barita hadii Allah yiraahdo aan uga bixi doono maxaan ku raadinaa gobolka Maroodi Sheekh geesta kale Halac Dhigoolo oo ah gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee gobolka ayaa isna sheegay in uu gudoomiyuhu joogi doono gobolka Saaxil muddo 2 cisho isla markaasina uu kulamo gooni la qaadan doono bulshada qaybaheeda kala duwan laabay degmada Sheekh si wanaagsan baa loogu soo dhaweeyay wuxuu la kulmay odayaasha haweenka iyo labadaba uu la kulmay imikana wuxuu soo gaaray Berbera waa arkaysaa si wanaagsan baa loogu soo dhaweeyay laba cisho iyo laba habeen uu jooga laga yaabaa wuxuu arkayaa bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka Sam News TV magaalada Berbera.